كتاجن إفساد وحلايا الله نوحل والله يعلم المفسد من المصلح إلى هاي وكلاوجي هاي كانوا البيس كده يدل بخريبية هي كدت كيسوكيني لا اسكجمت كيتراب هاي سبحانه وتعالى إننا وإنا نسكت كينشرين وحيابها مركان سوق بالجبايه إن الدم قيا وحكم إلى أيامها الدم ده تذكي عيانتها أما الصلادين في محدقات وهذا الذي إعلام كأيه ورباهين تأدية دورن قارية كم غليصه نحليا نشوشري وكسيدينية وتذكي عالجها أي حكومة يعني لا يفسيه ونصير ضره وحين لنا هديد الرميه نوصحة إلهي نوطوبت كان وحي آخر رفتين كعذر دارتا وقروشية كبحية أول با إن عقول مشاغين لكن وإعلانك وحالة يسمرين أيام درهوين ذاك التاغن ضدك بالله يأصن وبدي waxay waragtaa waxaan inuu yahay fitno madax dhaqameedkii waxay galeen kaalintoodii waxaan ahayn halkii lagu ogaa diin inay hagaajiyaan oo dhaqan ay hagaajiyaan oo sharafta qabiilkooda iyo tooda ay ka fikiraan wax lala yaabo kareeran baa ka soo kabacaya taas waa mid waxa labaad oo in damqaya col fara badan oo la isu soo urursanayo oo maamuladii iyo goboladii jaarka ah ay isu soo urursanayaan ayaamahan oo aynu arkayno wala akhriin karaynin natiijadiisa hadii la akhriyana ay tahay wax aad iyo aad u fogaan kara waxa mudan afar arrimood baa jira saddex arrimood islaamkeenu wuu ina faray inaynu ilaalinana way hal arrina waa ka feejignaanayna ummadda dagaalka u foogani saddex arrimood bay isu yihiin ay tahay inay egaan islaamnimadii aftirsimadii ugu qiimaha badnayd oo aynay iimaan ku walaalayihiin ilaahay baa wuxuu leeyahay innama almu'minuuna ikhwa waxay yihiin keliya dadka alla yaqaankii waa walaalo lama odhanin kan ikhwa walaalay la mid yihiin maaha iyagaa walaalaabaa leeyihi waayo abtirsimada dhabta aakhira shaqaysa waa islaamnimadoo lagu walaaloobo waxa labaadoo dadku ay si yihiin ab iyo isir bay isu yihiin oo dadku had iyo jeer waana isdhaleen tol bay yihiin xidhid bay yihiin ninkii dagaalka galee mid qabtay wuxuu ihi ha igu waraysanin iminkuu ii soo gelayaaye kuu qabtaaba uu soo galay markuu waraystay markii dambe wuxuu ihi aan dila ha igu waraysanin markaa midiba midka kale hadduu waraysto way isu soo gelayaan dadku taasina waa tii sokeeyanimada iyo xigtanimada meel kastaba dadku ha kala joogeen arrinta saddexaadna waxa weeye jaarnimada nabiguna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam maa zaala jibriil yuusiinii biljaar xataa danantu annahu sayuwarithu malagii malakuljibriil la odhan jiray aad buu igu celceliyay warjaarka ilaa aan u maleeyay dhaxalkeenu wax ka siinayo saddexdaa arrimood islaamkeenu waajib buu ka dhigay in dadka lagu xidhiidhiyo waxaana markaa meesha taalla saddexdii arrimoodba intaynu halkaa dhignay aynu u taagannahay isticmaarka shaqadiisa isticmaarkii ibliisku uu ka dhex hadlayayna gumaysanayay ayaa muu tegina dhin daaqaddu inoo taagan yahay markaa ummadda wuxuu dhex dhigay xuduudo xayraan ku salaysan caalamka bal sidaa u eg gabar iyo imaaraadka diyaaraday isku kicinaya xuduud baa la isku haysta suudaan iyo masar ciidamay isu soo urursanayaan xuduud bay isku haysta soomaalidiina bal eeg kooxahooda kala duwan xuduud bay isku haysta waxani waa wax la deberay ay yaxtag eel buu reebay inkaar qabiil ibliisku wuu tegay laakiin dee ma tegine xuduuddaasuu dhigay marka dadka muslimiinta waa isku dowlad keliya waana isku xad keliya inagoo qolo qura sheegayn dhammaantood marka la isku wada daro alumma alislaamiya ummatun waaxida wa dowlatun waaxida taasay tahay inay hore ugu socdaan almuhim markaa waxaynu leenahay midhka siyaasadeeda la isku hayaa siyaasadda waa mutaqallida wax isbedbedeli kara wey maanta sidaa lagu heshiiyey berrina waa la doorsan karaa waa laga agbedelan karaa waa dadku wax isku afkartaan marka saddexdaa arrimood ee waaweyn baa meesha yaalla in la ilaaliyo weeye siyaasaddana laga wada hadlo oo aanay arrintu dagaal iyo dil iyo burbur noqonin lacagta iyo maalka iyo xoogga faraha badan ee dadka lagu laynayo waxa mudan inaynu dadka ku badbaadino oo aynu ku noolayno oo aynu ku horumarino ummadda abaar baa haysata soomaalidu meelay joogaanba haddii haddana colaadiina loogu daro col iyo abaar dee waa ayaan daro marka waxay u baahan tahay dadka madaxda ah iyo culimada iyo maalqabeenka waa la wada ogsoon yahay in shaydaan iyo sharwadeen loo adeegayo inay muslimku dhexdooda ka dagaalamaan marka arrintaa waxaynu ku baaqaynaa baraarujinaynaana inta xaaladdu ay wax ka qabad leedahay tala waa maraad garan weydo iyo maraad gaari weydo in la garto wakhtiga ay munaasibka ku tahay oo barnaamijka siyaasiga ee khatarta badan ee gumaysigu dhigay laga wada hadlo lana dejiyo xalna lagu dhameeyo wada hadal wadiga arkayo maxaa muslimkii wada hadalka u diiday weligoodba ha iskhilaafsano ha dagaalameen wada hadalku waa daruuri labadii kuuriyaynu dhagaysanaynaa
iyadoo nuclearkii isu samaysto laga baqayo inay nuclear isku ridaan ayaa haddana waxay ku heshiiyeen shalayto aynu ururka qoladan tiimkii kubadda ciyaarayay aynu tiim keliya samaysanoo labada kuuriya oo calan keliya sita halkaasaa la maraya marka walaalayaal jazaakum allahu khayran taa aynu u wada howlgallo in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa niyad samaaniya daacad haddii lagu galana waxaan rajaynayaa dhan walba ha ahaatee in wax dhammaan doonaan waxana hubaala dhan kastay ummaddu joogto dadkaa muslimiinta ee soomaalida ahay in qolo waliba ay jeceshahay nabad laakiin dad waxaa jira riixaya oo laga yaabo dee in shaydaankii ka dhex hadlayo marka in kuwaa laga bataabaynu ku waaninaynaa ummadda caqliguna shaqeeyo oo caatifadda iyo anaaniyadda iyo qabyaaladda iyo waxaa la yidhaahda qab la ilaaliyo intaasoo dhan in laga soo gudbo xaaladaha qaar buu baquhu fiican yahay baquhu waxaa la yidhaahda geesinimadu shishaayahay ku fiicanta laakiin muslimka dhexdiisa inaad baqato ammaan bayt jazaakum allahu khayran allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم أصلح ذات بينهم اللهم أصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين